ها maanta waxaan jeclahay insha Allah taala marka horeysa inaan taasi u diro labadii sarkaal ee qaranka ka baxay ee xaq darrada ku dhintay ilaahay waxaan ka bari subhanahu wa ta'ala jannada ka waraabiyo inaga eheladiina oo ilaahay ka siiyo sumcad sabri iimaan waxa kanaan soo dhaweynaya hambalyeynaya rabadaan tun caawa sugina insha Allah taala waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland iyo dadka muslimkaba ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga dhigo rabadaan khayr qabta oo salaadeen iyo ajir iyo soonkiilo inaga aqbalo ilaahay roobna inoo keeno subhanahu wa ta'ala inta waxaan jeclahay horta inagu markaanu ka hadlayno Soomaaliland waxaan ogaanaa Soomaaliland horta dal bay ahayd xora bay ahayd 60kii qaatay doorasho maanta ninka aan soo dhaweynay Obasanjo madaxweyne hore ee Nigeria ayaan sanad wada qaadanay 1960 dowladnimo ayaan qaadanay waxaan ku sadqaynay wax la yiraahdo Soomaaliweyn oo inagu aan bushkareynay hadaan reer Soomaaliland nahay waxay noogeen waxay ahayd kilka shanaad hadda Ethiopia haysta maamulka hoose haysta oo dhulka hawdiya reserve la yiraahdo Afrika kontinka inaga jaray ayaa cadadeedu in magaashanta Soomaaliya isku keeno haddaad caruur baa tiinay hadda taariikhda aragtay ma garanay wax u soo saar waayay marka wasaaraddeenu heesayna waxay ku ahaayeen heeso qoomiyad Soomaaliyeed ah NFD baan u gabi jirnay hawd baan u gabi jirnay Djibouti baan u gabi jirnay obaqay ka calanka ho nonsense reedaa sababtayna qaaday Soomaaliya ma ku darsanay xilli wiligeed meena wada yeelan waan xasuustaa oo aan wayro NUFT aan lahayn xafladeeda ka qayb galay leeyahay waxay noo insa gabar xamar ka timid waa loo soo daawashatay isku direys ma ahayn waxay gashanayadu direyski gaalada toob yar gaaban ba gashay inuna goolgarad iyo ku dalbay qaadan jir dadkaas dad aynkaas aan ahayn ma lahan jirin xilli dhaqaale baamishari tacliin inagu waxaan ku xidhnaan East Africa iyo wadamada Commonwealth ka dalayla Kenya iyo Uganda ayaa loo jaamacada loo diri jiray dadkeen nimankan Talyaani bay haysto Talyaani inta ay ugu Afrika ka haysto way xidhnaayeen cid kale lama xidhan caamil jir fikradu waxay aan loo fiirsan aan scientific loo eegin moodeen xuduudaha aan bedeli karno taas waxay keentay in laba jeer Ethiopia ku duulay labada jeerna halkan baa laga duulay Somaliland abaalkeedu wuxuu noqday in marka la qaatay doorashad danajadii oo dhan 1976 7 ayaa ra'iisul wasaare leenaysay adoonari reer Somaliland taas waxay ku skaraysay inqilaabkii Maxamed Siyaad Barre caradii ka dhacday saa loo siiya halka markuu qabtay Maxamed Siyaad Barre waa la nasiib aasay tii waxay keentay inay SM samaysato history-ga lagama xishoodo is a history ciidamadii Maxamed Siyaad Barre iyo SNMT waa dagaalamay diyaaradaha la isku burburiyay ceergaawo ilaa Buur ilaa Gabiley meel waxa imkaan lagu yeero beesha dhexe oo la burburin ma jirto ceergaawo meel dhowto waxa xitaa ku taalay meesha oran jeey orientation-ka dadka la ku soo uriyay lagu laayay dhiigooda gidaarada ku yaalay 240 wadarood waxa jira oo xabaala jira jiin soo dhaba ka dhacay ilaa hadda waxa laga hadlaa adduunka Holocaust baa laga hadlaa ilaa hadda waxa laga hadlaa genocide-kii ku sameeyay Armenia ku sameeyay waxa kale yiraahdo Turkiga in taariikhda qadiima wixii hawliyaraantii naga tagay waxa ogtay khasaaraha dadka ku dhintay iyo in dhulka oo dhanta la burburiyay 2 sanadood aan dibadda joognay magaalada Hargeysa aad mooseen ku dhacay bam burco caynka ceergaawo Gabiley dadka lagu aasay
dad nool baa la dad ninka maxkamad baa lagu wadaa ninka tukalayna qofna oo la gubiyo daawanaya ka wada qaday ilaa hadda mareenka maxkamad ka socota marka in history-ga laga xishoodo ma Soomaaliland waa soo celiyay waa loo dhintay waa la wada leeyahay sidoo sharciga sheegay beelihii wada deganaa 60kii iyo wixii ka horeeyay ayaa Soomaaliland leh that citizens waa kuwaas waxaan u baahanay laakiin marka cadaalad baa loo baahan yahay laakiin beela loo ordo beela loo urjimaayo qof kastoo Soomaaliland waa inuu xaq mid yeeshaa تعلينت حقه يهشا بيها حقه يهشا ديفت ويهشا marka dadkan la wareegayo goboleysiga la wareegayo magaranaysa beelaha iyo danteena ma wada dan reer buu wada qofka madaxda ay dan reer ka rara dan umadeen ma rabo waxa jira intaas oo beelada reer Soomaaliland oo codkooda maqli ba jira oo kula xuquuqa kaas xagad kaga tigis heshiis ay qiilan karaan kaligood ma aha beelaha waaweyn heshiiska Soomaaliland waa every citizen Soomaaliland regardless qabiilkiisa iyo regardless meesha ku nool yahay waa wada xuquuq bala wada leeyahay taas madaxnimo loo yaqaan tan doon dhisna wata hadaan u xidnahay ma waxa leeyahay la idin waalin ninka reerkooda sita la ordiya daadii dantaadi ma wada reerkooda wada haduu birida madaxnimo qaato reerkooda mu ku taxaya cadaalad baa loo baahay waa qofka cadaalad keena sharci la keena lagu socdo laakiin beel iyo goboleysiyo wixii Soomaali baabiin توك سعنا سومالي أنتي قاعدني لا صنعنا حرمة ده أنت هسه دور شيء نقول عليه لا بكون يكود يوم بلونه ضوضة ملك كردية لو كردس الآن شرعي كردس شيء يا مجرو الدون كوحوي تاني مسؤولية هاي هيئة كسبة شن سنة بالحوينها شن سنة بالبرلمان قلت له ليش سنة ليل ما أنت وقت ولا ما هذا دولة خمسة عشر سوينا كذا ما ذاوي ما أنت واحد أركيسا قلت دينا الدون كم يشرتو أقل على الدوران وهذا الله إلهه وكأسرة يودك الدون وما دوسرة الشرعي قال لو بصوص عي مذكور ووضع شيء وقت يقولي ودافع دتك جيلي دتك ما هبيلها كيني ما وده حلمون نقطة إنا يروحوا هذا كوفيد قاطي أبي كانت وندول مو قرنين أيالي واحد تجورتي على كلمة قدام بيانه وحلو اسمه وحنا إنا بالانس كريان executive إيو برلمان كإيو جورتي برلمان كأنا إجماعات يا قعدت كوهاي أو وجود أكتيف سن واحد قعدت كوهاي يعني أنا الصوت دوران الصوت حنباري باش لما صوت دوران هذا هو chairman markii aan 2005 ka dignay doorashada riyaale wuxuu doonayay inuu ka dhigo chairman in koorahan hadda biyaha ka qabqabeeya noodan nin aan la soo dooran sideedu qof la soo doortay u chair garan kara wallahi waa macquul weey maanta isaga ka madax inta kale ugu activesan waayo waani man dhacay oo leeyahay waa dhaxasheen nin isharaxay oo dhacay wax ma dhaxli karo waa qodob aan doonayno inaan baabino joojino oo qofku haduu meeshii ka baxo sida adduunka by election la qaado yani systemkii dawladnimo dhan baynu ku ciyaarnay dadka maanta u qaylada badan ee doonaya inay doorasho dhicina waxay ka soo jeedaan dadka aan la dooran ee dhaxal ku yimi iyo dadka isxambaarka ku yimi ayaa doonaya inay qadiyada Soomaaliland oo shilin qura ku bixin inay ka taliyaan taas waa farxo inay ugu tahay arintan u dambeysay hadda komishanka maxamed xaaji ibrahim cigaal ayaa sameeyay saddex xusmood wuxuu yiri ha qaatay madaxweynuhu maya xusbigiisa weeye labana guurtiga oo markaa loo arkay institution independent labada xusn macaaridka saasinu ku jirnay 2009 ayaa markaan kulmiyo aan ahayn u ciidaha macaaridka
ayaan aniga Axmed Siiraanyo madaxweynihii hore waxaan qornay proposal aan leenahay hal kordhiyo 9 laga dhigo sababtu waxa weeye toddobadu way ku yartay marka doorasho dhacayso dadkoo dhan meesha khalib ay noqotay meesha xaruntu gobolka kala tagaya marka si numberka oo loo badiyo xaruntu cid badan ku hadho 9 laga dhigo laba oo shamaan marka siinay madaxweyne riyaale in amba saddex loo qaato saddex xusbi amba laba xabad anaga la nagu daro si ay fair noqoto dawaad iska garanaysaa riyaalana aduna uu naga diiday ma aanay tamay socon waxaan habeen maalinta ka maqlay BBC ku yar oo ilaa barxadaada soo galay siyaasadda oo iyaga wax la doonaa inay wax helaan war hortaaban 2009 waxaan anagu qornay markii wadani soo baxay waa kaas ay ugu beenayo waxaan idhi maanta aynu waka kulmiyo oo nala qoray marka aadna u cudeed in 9 laga dhigo xabad qaadana aan sameey fadhiye aan arinta cusbeenaysiino marka ay waqti u dhamaado commissionkaas waa taybiyay markii waqti u dhamaaday la yiri soo qora magacyada ayuu markiiba soo Maxamed Ismaan Fadal oo magacaabay waanu tagnay aniga Cabdi Naasir maxaa dhacay sootan ku heshiinay inaynu commissionka soo saarna arinta waxay nagada muranka doorasho dib u dhacaysay shiraan ku gal commissionka markii dambe bishii March aan damacayna degno ka hadalno doorashooyinka guddiyaal sameeyay 3 gudoomiye shana 3 maalmood ka bacdi wuxuu yiri xusbiga wadani hal kale eriyo ma aaminsanin barbay dhacday hore commissionka oo dadka si xubay ugu sheegan bariga anaga kulmiya ka ashkatoonay laba xusbaan waxaanu ka loobi gareynay in xubnihii commissionku iyagu is-asilaan horta kaayagii ma is-asilin khadalka imka ra'iisul wasaar ku-xigeenka ka ah Soomaaliya ayaa is-asil baan qolka waa ka hawlgalay kii kulmiyo is-asil waayo udbaa u galay laakiin markii saddex is-asishay Ismaaciil is-asili ayay wixii meeshan qortay laakiin sharci lagu kala bedelo kala jara ma jiro xusbaydi oo kale arinta markii ay ka noqotay anagu waxaan u horjeedo waxaan anagu kaay hadda degmid baa kuleeday midkiina la baxbaan ku nir waxay markaa in doorasho socotaba inay doorashadu wadada xiddi saddex xusba qaran baa jira hasaatee sharci wuxuu oranaya laba xusbi iyo wax ka badan way gali karaan asxaabta qaar baa doorasho ka hada xaq bay u leeyihiin laakiin looma fadhiyo maaha heer of doorasho dhicmayso doorasho waa sharci dhacda way halka anaga u ciidaha ma ka bilownay madaxweynahana waxay istusay oo maxaa ka galay haday diideen baarlamaankan qashinka 26 baa tirsataa meeradan qurunka ah waa wada leh rabishka baad leh rabishka iska dhax fadhi maxaa doorada shidoo qaway dad wadana diiday si taas in uga baxno waxaanu taanay 114 bilood baan ka shaqeynay 60 jeer baan la kulanay Cabdiraxmaan waa kaas waxaan ka raariday war Cabdiraxmaan oo labadii berigi aan doonay aan ka soo rido adna ka daa hala kala diray waa tibuy Muuse diiday waxa halka oran jiray caarad dalka uga baqay ma Muuse uga baqay aad oran jiray markuu labada ku darwaay marka halku kala naqay haddana waxaan kicinay civil society iyo madaxweynayaashii hore wadaadada dib u bilaabay waxaan idin ka keena labada xabadood Cabdiraxmaan waxa ay ugu beenayeen waxaan Cabdiraxmaan oo arbacada haduu sayli keeni waayo madaxweynuhu ka soo raarada labadii xabadood labadeena intan tagno Nairobi amisan u yeedhna baan ku yiri ay qodqas wuxuu yiri waa si fiican gacan liba waxaan ka soo dejinaa oo leh airport ya naturally arbacadii labadii la noo keenay Cabdiraxmaan diiday anika idare isku diilay Muuse Cabdiraxmaan mar kasta aanu soo celino aan ilaahay warka aynu loo hadlo laga hadlo dibaddu bixay markasta wada hadalna soo celin
waxaynoo yimi toddoba safiir baynoo yimi iyo iyuudi bishii labadeedii yani waa yaqyaqsi dadkaas waxayna tusiyeen miisaanka iyo xubadda inuu hayaan ayna tusiyeen waxa foolxumo noqotay markii saddex xusbi dalka samaysteen oon isku qabsanay 7 baa la diiday sharciga diiday halka waxa ka cadaatay in dad wadanka wadi karaba aynu ahayn capacity dal lagu wado waxa 14 bilood lahaa 7 laga dhigo xeerka halabada waxay warsan afmaha ilaa Britain joognahay soo hadla soo heshiya waxaan imaka aan fariisano kulmiya yiri ma yaanu imaka danbaan leenahay Britain oo hada 8 subax xafiiska u cid habeennimadii baan anagii wadan shirnay dam walbaan ku shirnay abdan dawa sidoo baxsaday soo ma joogo ragina la galowto way amaaneen xirsi iyo ninka ilaa abdiqaadir jirto ku yaro caloku salaa soo ma hadleen waxa dhacday waxaan ugu heshiinay in early la sameeyo ku hore ku cusub annagoo address gareynina arrintii ahayd guddi cusub ha qabato tan ma aaminsanin commission cusub joona hala magacaabo kuwana waqtigoodii ha dhamaysteen inay dambi galin ma jireen ha dhamaysteen kuwana training ha u joogeen markay gaaro October hal sharciga ha la geeyo ka bacdina hala wareegeen November iyagoo wax soo bartay hay noo qabteen doorashadii okay halkan mar subax ku shirnay qoladii kulmi waxay ilaahay naga daaya June October war October muxuu baran karaa qof October la keena babaade maya hanaga June markii dad dhaxad waxaan dhaxad ma ku keeno waxaan yiri hala keeno aan dhigan August ka dhigano August kan Abdiqaadir Daayiri waxaan la soo tashanaa meeshii muxuu ahaay irna soo tashanaa Britain oo hado ma sabtayno hado way noocanka gaaladii baan u tagnay qoladii bixiyay caawinayay waxaan raali naga ahaada maantana maanu heshiin laakiin waxaan ku heshiinay inta waxaan isku haynaa on August iyo June waxay la meel fiican baa gaadheen waqti ay iska khasaarina maanta adduunku u soo jeeday nimankan suugina waxaan ku waraagnoon Abdiqaadir jirdo yiri waan ugu kala kacay wariyana maxaa dhacay waa ugu kala kacay waxay markii waxay yiraahdeen suuga gudoomiyahaygii waa ka yimi daanu ma suugina mid dalku xidhnaanaya halkan waxa dalka soo baxay waa laba arrimood horta anagu waxaan nidhi xisbiga waxaan nidhi doorashadu ha dhacdo ee maana laba xisba qabanaya Somaliland doorashadu ha ka dhacdo sidoo sharcigu sheegayo dambe 12 December annagoo address gareynina soo jeedintii wadani 7 xubnood oo cusub adeeg kuwii hore ay ilaahay kuma kalsoon ka baxeen meesha cusub ha sameyn annagoo ka duulina hala kudhiyoodii 9 halaga dhigo marka baarlamaankan ka baxo ka cusub aan ka dhigna 9 marka ha dhowto aan 9 ka si loo qaybsanayo aan ka tashano marka anigu maxaan goyn gareynay anagoo ilaa 2009 wixii aan dooninay in la badiyo helay waxay daxgeyn gareeyaan wadani hadalkoodii ahaa wada kaliya waxay aanu ogolaanay inay guddi cusub qabato dalkuna muxuu faa'iiday doorasho inoo dhacda marka gees kasta waa win marka waxaan leeyahay waxay ninka yiri baroortu ciisaanta ka weyn arinta commission way ka weyntay wiligii Allah isaasan asxaabta isku qaban jirnay 6.0 u dawo ooyideen arinta markaas waxay arin anagu gacanta ku hayno runta ay dishay Soomaaliland maanta arrimaha waa la yeeshay gacmo shisheey nagu jira taas waa inuu heshiis weyn Afrika ku bilaabo that's why aan wax sakaara ka biilsada war 7 sagaal laga dhigo ya nina leey ka dhigi maayo sagaal nina leey ilaa laga dhigo doorasho dhicmayso okay annaga asxaabta mucaaradka waa noo faa'iido tadalku noo faa'iido waxa ay sheegay Soomaaliland
waxaan sheegaya laba jeer hore ayay maanta qadiyadii meel fiican marsi 29 meel fiican marsi maalintaasna inaga gaagixin rag hadda halka jooga iska dhiga mujaahidiin ay waxay qori jireen hana ictiraafina waan is haysanaay haddana waxay soo gaadhay markii riyaal joogay 2010 haddana waxa gaagixiyay kulmiye oo qabtay 2010 ayaan dhaqaaqay maantana in ka wanaagsan ma jirto laakiin ninka dooniya Muuse fashili Muuse wuu fashilaya laakiin ka qaranka in loo turaaway haddaad madax tahayna maaha inaad dabshida maaha inaad qabiil ku hadashay maaha macaaradu maaha dab baan ku shideeya macaaradu maaha Soomaaliland dalkayga foolxumo u sameynaya maaha macaaradu waxa weeye policy taa keenta tu ka fiican baan haya taa ad baylaysay tu aanu baylayn maayo weey laakiin in dadka la isku dirdiro ma Soomaaliland waxa weeye waxa geed bayna ka wada baxnay geed in loo xisaabtamo seen kale qoomiyada kale ma qoomiyada kale in soo hadlama dadkii kale qoomiyada aha ee kala afka aha ayaa is ogol oo is rumaystay oo is aaminsan oo sharci isku ka aaminay sharci baan leenahay wuu fiican sharci waa sharci ku socona laakiin waxaan lagu hadlayaa beesha dhaxay ta kooraha iyo taageeraha iyo taas ummad lagu dhismaayo maamul baa xumaaday maamulka ku ekaado magalanayay canaanto laakiin beela la canaanto in ummadan ceebeeyo waa ceeb weey Soomaaliya inaga sugisa la waata kuriba ku ciyaaraysa waa aragtay kuriyaro diyaarad aan ka degin halkan baanu ka hagaajinaa insha Allah taala oo soonaha shanaad ka hagaajinaa isku soo xidhnaa soonaha shanaad iyo Soomaaliya waa isku mid ayaan ka sameynaa laakiin waxa ii sheegaya Soomaaliland qaran beehed qaranka waa soo celinaa waxa laga hadli kara taas ma madaxnimada Soomaaliland waa loo dhintay guri kasta oo maanta aan loo dhimo qof ka dhiman ma jiro in laga dhigo riwaayad beel dhaxaa sameysatay baba adar waa cadkayni oo naga qurmo soo ceshanay baa weey laakiin wixii kale oo waa laga hadli karaa saami qaybsi waa laga hadli karaa xuquuqdiisa waa laga hadli karaa wakaasoo aniga iyo Siraayo waxaan la orodnay riyaale labadii uu ka badiyay barado muqdisho ka noqon meeyir madaxweynaha sheegayay ka noqon ilaa baan ku dhaalay marka adeer waxa weeye waxaad moodaa dad baa maxabadooda imaka inay nabadii ku daacaqulmeen nabadanu haysay qaar ba ku daacaqulmay laakiin waxa ay sheegeen nabad iyo amaan baa lagu dhisi karaa horumar lagu dhisi karaa reer iyo kala qayb lagu dhisi karo annaga u cudma kan hayno Faysal waraabe iima sinna nin maamulka xumeeyay oo leeyahay hagaaji iyo nin doonaya inuu afgambiyo iima sinna ma wiligan ma sinna aabahay baan ka diiday